Do you like this video? Subscribe on it. waxaa filayaa inaad ka warhaysid ciyaaryahano badan oo ku dhacay xukun xabsi ah balse aan ka warhaynin ciyaaryahano bilooyin xabsi hooy u ahaa hadda waa kubee sagaalkii ciyaaryahan ee ugu caansan kubadda cagta ee xabsiga soo maray number 9 Robinho dambi kursi ah ee dhacay sanadkii 2013 dadkii lagu soo eedeeyay ayuu ka mid noqday 33 jirkan ayaa boqol kun u saftay Brazil isla markaana u soo ciyaaray kooxaha kale ah Real Madrid, Manchester City, Milan ayaa hadda ka mid ah kooxda reer Turkiga ee lagu magacaabo Istanbul ka hor intuu sarrafaan ka qaadan xukunka xabsiga ah ee 9 sano ay ku rideen maxkamadda ku taala Talyaaniga falka lagu soo eedeeyay Robinho waxaa kula jiray 5 nin oo kale number 8 George Best mid ka mid ciyaartoydii ugu fiicnaa abid u ciyaara kooxda Manchester United noloshiisii ugu fiicneed waxaa soo baabi'iyay waqti kooban oo ku qaatay xabsiga George Best wuxuu noqday nin caan ku noqday cabista alcoholada taasoo inta badan faragelin ku sameysay mustaqbalkiisa kubadda cagta waxaa lagu xukumay dhowr dhacdo isagoo gaari ka xeenaya isagoo cabsan sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay dambi kursi ah sidaas wuxuu ku qaatay xabsi waqti 3 bilood ah joogteenta cabista qamriga Best waxa ay sababtay 2005 isagoo da'diisu ay tahay 59 sano inuu geeriyoodo Troy Deeney ciyaartooy ku guuleystay horyaalnimada heerka labaad ee dalka England ayaa lagu xukumay 10 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay inuu gacan qaaday wiil arday ahaa Horyaalka Watford FC Troy Deeney oo 23 sano jir ah markaa waxaa laga duubay kaamirada CCTV isagoo garaacay mid ka mid ah ardayda dhigata iskuul ku yaala magaalada Peckham Watford FC markii la wareegaysay ciyaaryahankan bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ka warqabto in ciyaaryahankooda uu soo maray xukun maxkamadeed Renan Higuain golaha cajiibka ah ee reer Colombia waxaa lagu helay ka ganacsiga mandooriyaasha iyo afduubnimada golaha reer Colombia ee Reni ayaa xabsiga galay xilli ay kooxdiisu isku diyaarinaysay koobka adduunka 1994 ka dhacay Mareykanka falal badan oo afduub ah ayaa jira oo lagu soo eedeeyay golahayaha waxaa lagu eedeeyay afduubka laakiin wuxuu si sharci darah u abaabulay sideenta gabar 11 sano jir ah ma oo markii hore afduubkeedu qayb ka ahaa laga soo bilaabo 4 June waxaa lagu haystaa in uu markaasi ku kacay falal ka baxsan sharciga xabsiga ayuu ku hoyday inkastoo Colombia u soo baxday koobka adduunka xilligaas markaas oo shalay Eber kaga badiyeen Argentina ciyaar ka dhacday caasimadda waddanka Argentina bishii September 1993 Higuain kaliya telefishinka ayuu ka daawanayay ciyaarta isagoo ku jira qolka xabsiga Adam Johnson hadda waa 30 jir wuxuu ku koray Carlton Durham wuxuu ahaa wiil dhallinyaro ah oo Newcastle United Middlesbrough u soo ciyaaray wuxuu kulankiisii ugu horeeyay u saftay Middlesbrough bishii March 2005 wuxuu ciyaaray UEFA Cup da'diisu waxay 17 sano xiddig garabka ciyaaro oo tayada lahaa 120 kulan ayuu waqtigiisa ku qaatay Leeds Watford xilaareedkiisii ugu horeeyay City wuxuu ka caabiyay ku guuleysiga FA Cup-ka wuxuu ka mid ahaa kooxdii ku guuleysatay koobkoodii ugu horeeyay Premier League 2012 wuxuu kaloo 12 kulan u saftay xulka England waxa uu saxiixay Sunderland 10 milyan kadib markuu ku dhibaatooday waqtigiisa ciyaarta inuu helo boos joogto ah City Johnson ayaa u saxiixay Sunderland adduun 10 milyan sanadkii 2012 wuxuu sii waday inuu ciyaaro kadib markii lagu qabtay dacwad lagu soo oogay bilowgii maxkamadiisii bishii Febraayo 2016 wuxuu ku waayay 60,000 oo pound isbuucii isagoo u ciyaaray kooxda Black Star ugu dambeyntii way ceerisay naadiga kadib markuu qirtay dambiga lagu soo oogay ee ah inuu geystay kufsi ciyaaryahanka qadka dhexe caan ku ahaa dagaalka ee Joey Barton ayaa si heer sare ah liiskan ugu soo muuqday xiddigii hore qadka dhexe kooxda Manchester City ayaa adduunka uga yaabay qaar ka mid ah falkii feerka ahaa oo kula kacay ciyaaryahanka soo horjeeda waxaa lagu xukumay 2 dambi koowaad ayaa ahaa inuu gacan qaaday ciyaaryahanka soo horjeeda ka labaadna oo ahaa inuu gaari ka xiyay sigoo cabsan waxaa lagu xukumay xabsi 77 maalmood ah Jermaine Pennant daayirkii hore Arsenal Pennant ayaa gaari ku jabiyay Marquis kadib markii uu gaari u kaxiyay sigoo qamri cabsan sanadkii 2005 waxaa lagu xukumay 3 bilood oo xabsi ah inkastoo la sii daayay markii 3 meelood ka mid ah waqtigiisii lacag ahaan loo bixiyay wuxuu sheegay in saameyn weyn ku yeelatay noloshiisa waxaan u maleynayaa qofka gala halkaasi inuu isbedeli doono waxay aniga ii bedeshay oo iga dhigtay inaan rabin inaan ku laabto halkaas mar kale ayuu yiri sanadkii 2010 marka labaad waxa ku jira Tony Adams bishii December 1990 daaficii Arsenal waxa lagu qabtay isagoo qamri cabsan waxa lagu arkay inuu 4 jeer ka badan yahay xadka uu ogolaanayo sharciga
Adams waxa uu xirnaa 4 bilood wuxuuna ku shaqeynayay 2 ka hor inta uusan ku soo laaban Galles inkastoo xaqiiqda ah in la sii daayay in ka yar 6 maalmood oo xabsi uu ku qaatay sheekadan ninka ugu dambeeyay waa ninka lagu magacaabo Duncan Ferguson Big Dance waxaa loo diray xabsi 1994 xaqiiqdii wuu ogaa inuu xabsi aadayo kadib markii kulan uu ciyaarayay ciyaarahan ka soo horjeeda oo madax ku weeraray xukunka ayaa loo marinayay inuu ahaa 3 bilood laakiin Ferguson kaliya wuxuu shaqeeyay xukunkiisa 44 maalmood kaasoo markii dambe uu ka baxay ciyaaraha intaas waxay ahayn saaxiibayaal 9 ciyaartooy oo caan ah oo soo maray noloshooda kubadda cagta xabsi